maalin wanaagsan taageerayaasha Liverpool ee ku xiran boggeena Facebook iyo sidoo kale YouTube-keena One Liverpool Somali Fans. Waxaan maalin kasta idiin soo gudbin doonaa warbixinadii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Aynu ku bilownaa Liverpool ayaa xalay waxa ay guul weyn ka soo gaartay garoonka kooxda kubadda cagta ee Benfica ee Stadio de Luis loo yaqaan, kaas oo xalay ay soo buux dhaafiyeen taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Benfica, kuwaasoo sidoo kale ku xadhan calaamadaha kooxdaasi. Liverpool ayaana hadda hal lug la gashay wareegga semifinalka ee tartankaasi, maadaama lugta hore ee wareegga sideedda xalay 3 gool iyo gool garoonka kooxda Stadio de Luis ee Porto ay ku ciyaarto ay kusoo guuleysatay. goolasha Liverpool waxaa u daahfuray ciyaaryahanka difaaca ah ee xulka Faransiiska ee da'da yar Ibrahim Konaté lagu magacaabo, kaasoo kubad madax dhaliyay oo uu soo karoosay Andy Robertson. waxaana goolka labaad Liverpool u dhaliyay ciyaaryahan Sadio Mane oo caawintiisu iska lahaa Luis Diaz oo Portugiiska kooxda ka dhisan ee Porto Liverpool kaga yimid. sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta Liverpool goolka guusha ay ku sii dheereysatay farqiga goolasha waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Luis Diaz. Liverpool ayaana ugu dambeyntii xalay ku adkaatay 3 gool iyo waliba gool. Rediska ayaa ka adkaatay kooxda Benfica markii ugu horeysay tartamada oo dhan, waana tartamada Europe iyo UEFA Champions League, European Cup tan iyo 1984, markaas oo ay Liverpool kaga badisay 3 gool iyo waliba gool 3 jeer oo xigana. Benfica ayaa adkaanaysa Rediska xalay waxay iska meertay heryadaasi, waxaana ay soo afjareen in kaartii ka haysatay kooxda ka dhisan wadanka Portugal ee Benfica loo yaqaano, waxaana dhaafay tiradii sidoo kaleeto goolasha oo 3 gool iyo gool mar kale ay kaga adkaatay. weeraryahanka Senegal iyo waliba kooxda Liverpool Super Sadio Mane ayaa dhaliyay goolkiisa 22aad ee tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League. Mane waxa uu dhaafay tirada goolasha halyeegii hore ee Liverpool Steven Gerrard oo Liverpool tartankan u dhaliyay 21 gool, waxaana Mane kaliya ka gool badan Mohamed Salah oo dhaliyay 33 gool. Darwin Núñez ayaa ah ciyaaryahankii xalay Liverpool goolka ka dhaliyay, waana ciyaaryahanka ugu badan ee kooxda Benfica gool u dhaliya. gool ayuu caawiyay Luis Diaz, waxaana uu ku daray caawin cajiib ah, waxaana uu ismuujiyay xalay mar kale. wuxuu sidoo kale soo bandhigay inuu u qalmo Luis Diaz in uu u qalmo kooxda kubadda cagta Liverpool in maaliyadeeda uu xirto. Diaz ayaa sameeyay bandhig heer sare ah, waxaana uu noqday mid ka mid ah ciyaartooyda sida weyn loogu hadalhayay kooxda kubadda cagta Liverpool shaxdii xalay uu kusoo bilaabay macalinka lagu magacaabo Jurgen Klopp ayaa kulanka soo aadan Premier League wuxuu la ciyaari doonaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City la yiraahdo, wuxuuna rajeynayaa in uu guul weyn ka gaaro kulankani. kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxay sanadkan doonaysaa sidoo kaleeto inay ku guuleysato ilaa iyo waliba 4 koobood. Liverpool ayaa badisay 8 kulan oo xiriir ah oo ay marti ahaayeen, waana markii ugu horeysay taariikhda Liverpool ay sidaas sameyso. waxay muddadaasi dhaliyeen 16 gool kooxda Liverpool, waxaana laga dhaliyay 2 gool oo qura. sidoo kale shabaqooda ayay ilaashadeen wiilasha Klopp ilaa iyo 6 kulan oo xiriir ah. sidoo kaleeto ciyaarihii xalay waxaa laga diiwaan geliyay daafaca midig ee Liverpool Trent Alexander-Arnold ayaa xil ciyaareedkan caawiyay 16 caawin. sidoo kale saaxiibkii baalka bidix ka ciyaaray Andy Robertson ayaa isaguna waxa uu caawiyay 14. wadar ahaanna waxay caawiyeen tiro gaaraysa ilaa iyo 30 caawina xil ciyaareedkan, waana mid ka mid ah daafacyada bidix iyo midig ee adduunka xilligan ugu wanaagsan. ugu dambeyntii Liverpool 3-1 ayay kaga badisay Benfica lugta hore wareegga sideedamaadka tartanka Champions League ee quarter finalka. Reds ayaa marti u ahayd Benfica, waxaana sidoo kaleeto xalay si weyn isku muujiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Luis Diaz. haddii aad ku cusub tahay channelkeena YouTube-ka One Liverpool Somali Fans, fadlan nagu soo biir. sidoo kale page-keena Liverpool kala soco warbixinada ugu dambeeyay ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool. وساعيبكن عبد الشهيد قنعي وإذا له رمضان كريم.